ganacsatada xoolaha ka ganacsato xaqiiqdii dhib badan ku haysta markii la yiraahdo ka ganacsi ahaan xoolihii yani hay'ad si toos u maalgeliso oo caafimaadkooda iyo xanaanadooda iyo ka warqabkooda jira male asoo yani iska sidaan ahaa inta la dhoofiyo ama la gado ayaa waxa laga kulmaa cilado fara badan oo yani markii hataa la geeyo imaaraadka oo kale oo loo iib geeyo oo meeshii la tago waxa laga yaabaa xoolaha in la yiraahdo xanuunsan yihiin taas waxay keenaysaa maamulka dawladda iska jilcaysan wasaaradii caafimaadka oo si toos aan u shaqaynaynin muxuu ahaa xoolihii ka warqabkooda iska xanaanadii xoolaha oo si fiican u shaqaynaynin taas sameynayso dhaqaalaha guud oo muxuu ahaa yani xoolaha oo la rabay in yani sare loo qaadanayo xaqiiqdii waa iska kooban yahay oo dadka hadda xoolaha ka ganacsado nin kastaba jeebkiisa iyo tabartiisa maalama ahayna yani ile kale oo muhiim ah oo yani oo ganacsigaas ku dhiirigelina male dhaqaalaha gabaabsiyey la gaagixiyey oo guray gaarsiiya heer sare inta qaran guddoonsiyey xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxa ka soo baxa waa lafdhabarka dhaqaalaha dalka waxa lagu qiyaasaa xoolaha dalka ku nool ilaa iyo 50 milyan oo neef waxa ka faa'iideysa 65% dadka Soomaaliyeed 80% waxay qayb ka yahay waxyaabaha laga dhoofiyo dalka waa qaybta ugu badan oo ay ku howlan yihiin murqumaalka iyo dadka reer miyiga ah waxa laga helaa nafaqo waxtar u leh jirka aadanaha waxa laga faa'iideystaa hargeysa oo inta badan la dhoofiyo waxa laga helaa lacag adag oo uu dalku ku tiirsan yahay caqabado badan ayaa inaga hortaagan ka faa'iideysiga xoolaheena oo ay u horeyso dawlad la'aan keenta in aan la horumarin xoolaha iyo xoolo dhaqatada nafciga xoolaha oo lagu bedelay caano bada ah oo dibadda laga keenay cunaqabateen ku timid suuqyada ay xoolaheenu ku tiirsan yihiin iyo hay'ado difaaca oo la waayay xoolaheena oo ku xiran suuqyo kooban xadidayna inay ku tartamaan suuqyada caalamiga ah la'aanta shuruuc iyo istaraatiijiyo la san qaadi karta oo caalami ah ganacsatada xoolaha iyo xoolo dhaqatada oo aan door ku lahayn qorsheynta qiimeynta iyo siyaasadda lagu horumarinayo xoolaha dhaqaalaha gabaabsiyey la gaagixiyey oo guray gaarsiiya heer sare inta qaran guddoonsiyey aan ballan qaadayna in xoogga la saaro sidii loo tayeyn lahaa xoolaheena iyo xoolo dhaqatadeena iyo wax soo saarka halbowlaha u ah waxaa la dhisi doonaa guddi heer qaran ah oo ka kooban ganacsato xoolo dhaqato iyo dawladda kuwaasoo ahmiyad gaara saari doono dib u nooleynta ganacsiga xoolaha si gaar ah waxaan awood loo saari doonaa in si buuxda ay xoolo dhaqatada uga qayb qaataan qiimeynta iyo siyaasadda lagu horumarinayo xoolaheena in siyaasaddeena arrimaha dibadda ay u adeegto sidii loo iibgeyn lahaa kheyraadka dalka oo ay u horeyso wax soo saarka xoolaheena